fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. habeen wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo ducaa waa joogtaan oo naga daawanaysaan hadday ahaan lahayd dalka iyo dibadda waayahay waa habeenadan waan ognahayo waa ogtihiin inaan suuq kala iibeysaynayno micnuhu bariyahan waan suuq kala iibeysaysannahay waanu suuqaynaynaa yani moogtay ciyaaruhu marba meelba xasaasiyadu meel bay u badnaataa yani maalmo ay ciyaaruhu meel xasamaasad u badnaataa marka bariyahan waa kala iibsi bariyahan kabta noogu jirto waa kab kala iibsi waan habeenaynaynaa waan maalinaynaa marka warka waa ka waan kala iibsigu waa dhow yahay waa gabagabo marka ciyaabo waxa uu caaw ugu door karon ayaan soo hadal qaadi doonaayo hadaba kolba AC Milan ayaa galabtu ciyaaraysayo Milan waxaan arkay iyagoo wax kaleynaya hadda Milan waa badisay Higuain iyadan u ciyaarin bay adkaatay maanta laba gool bayna ku garaaceen Genoa Milan goolash waxa uu dhaliyay ciyaartoyga Fabio Borini Milan hadday Fabio Borini wax ka raadinayaan ka war Milan wallahi ilaahay amarkid Milan ay ahaan jirtay bariyaqa ciidamada ku tur ahaan jirtay kooxdaas ya kaka markuu joogay Pirlo iyo Katus iyo Ambrosini iyo afka hore markay joogan Thomason iyo Shevchenko iyo Bibo Inzaghi oo kale war waxa waa la badnaa ya markay gadaal ku fadhiyaan Jamstam iyo Cafu iyo Maldini iyo Dita iyo armaxay rag ahaayeen berigi kasii horeeyay Ruud Gullit iyo Frank Rijkaard iyo Mark van Basten iyo Milan waxay Milan soo ahaatayba Milan waa ka taalayo Fabio Borini ay Milan waxay rabtaa adduunka ku dhaqda micnaa Fabio Borini oo sandalan isaga soo wareer iska qaaro oo u ciyaaraya maanta isaga lagu faktay mararka qaaruga gool dhalaya Borini baa intuu gool dhaliyay daqiiqadii 72 ciyaarta ayuu soo mid labaad ciyaartu dhaliyo 3 gool laba gool ciyaartu ka dhigay eber marka Milan Rossoneri waa adkaatay marka ciyaartan suuqa ku kaysan marka maanta Higuain man ciyaarin micnuhu Higuain waa macsalaameeyay kooxda Milan waqtiyada nagu soo foodlay kadib barnaamijkan ayaa lagu wadaa Higuain uu London gaaro diyaar garowgi ugu dambeeyay uu ku jira London uu ku gaaray ninkan uu ciyaartoy Chelsea ku noqonayo marka ciyaartan man ciyaarin Gonzalo Higuain Milan la'aanta Higuain bay ciyaartay weyn adkaatay dhan kalena ciyaartan ciyaaryahan ciyaari lahaa ayaanu ciyaarin oo Genoa ka tirsanaa maxay yeelay Milan waxay tiri ma fasaxayno Higuain oo Chelsea ma siinayno ilaa bedelkiisa aan ka helno marka Milan bedelka ninkan waxay ka raadinayaan kooxda kubadda cagta ee Genoa asaguna maanta waanu ciyaarin waa ninka la yiraahdo Baitak oo nin qatar badan oo Ronaldo goolinta Serie A kula tartamayo 13 gool xil ciyaareedku ka dhaliyay kooxda tababaruhu kooxda oo hadlayay wuxuu yiri maanta aad u murugsanayo inaan iska lumino nin gool intaas noo dhaliyo kale waa wax aad u ciil badan ayuu lahaa marka Baitak kan ayay Milan ku dhowdahay inaanu maanta galabtu ciyaarin oo ciyaarta Milan aanu ciyaarin waxay ka dhigan tahay asaguna qarka uu saaran yahay AC Milan marka heshiisi ayaa isku xirxiran oo dhinacyada kan marka Baitak Milan wali ku biiristiisu waxa la filayaa saacadaha soo aadan ee caawa ilaa Ibriya la filayaa tan Higuain marka hadii Milan ay dhameysay heshiiska ninka kan oo Baitak ay gacanta ku dhigto Milan marka Chelsea isla markiiba ay ku dhawaaqi doontaa Higuain la wareegidiisa Higuain imaanshiisu haduu dhacana isla markii waxa lagu dhawaaqi doonaa wareegida Alvaro Morata oo isna ku biiri doona kooxda kubadda cagta Atletico Madrid waa heshiis saddex geesla Milan Chelsea Atletico durbo way isku wada xiran yihiin marka saddexda heshiisba waa wax isku xiran oo marka galabtu baynu ciyaarin Baitak Milan waa adkaatay laantii markay ciyaarin Genoa waa laga badiyay laakiin waxa loo badinaya ciyaartoygu waqtiyada soo aadan caaw in lagu dhawaaqi doono heshiiskiisa marba hadii Milan ay ku dhawaaqdo ninkan isla markii Chelsea ayaa ku dhawaaqi doonta iibka Higuain dhan kalena war ayaa isna wuxuu leeyahay Alvaro Morata isla daqiiqad kadib isna wuxuu aadi doonaa Atletico Madrid hadaan boo labadanba ka hormarinba Alvaro marba waa baxaya asaga xataa labadan heshiiskan qayb ayuu ka yahay laakiin haduu Higuain imaanayo Morata meesha ma joogayo maxay Zari mar rabo ninkan qoys ka keen wuxuu yiri warniyow cimaamad ma leedihid cimaamad ma lagu cimaamadi karo goolka lagu ma aamin karo gool dhaliya ma tihid buu ku yiri marka waa isdeeyay ninka marka Alvaro Morata waxay caawar ku sheegayaan isagu xataa in heshiis uu la gaaray kooxda Atletico Madrid oo ciyaartoygu ama ugu wareegaya marka hore kooxda Atletico Madrid haduu anfacana dib ay ciyaartoygu ula wareegi doonaan marka ninka kan ayaa waliba waxa leeyahay heshiiskii mushaarka ka qaadanaya kooxda kubadda cagta ee Atletico waa nimanka raado Chelsea hoos buu dhigi doona waa Atletico qiimo jaban buu ugu wareegaya heshiis ugu qaadan doona marka 48 saac soo aadan ama saacadaha soo aadan ugu soo fool leh saddexda heshiis ayaa isku waqti wada dhici kara Higuain oo Chelseaobaya Baitak oo Milanobaya Atletico Madrid oo ina Morata gacanta ku dhigi doonto isna halka Madridoobi doona marka ninkan la yiraahdo Morata isna wuxuu caawal waxa leeyahay heshiis bay wada gaareen Chelsea iyo Atletico oo in ciyaartoygu ama ugu wareego marka hore Atletico Madrid kadibna ay toos u iibsadaan marka heshiisyada saddexda ee Milan iyo Atletico iyo
Chelsea waa kaayo marka kollay ninkii maanta maanu ciyaarin Genoa marka waa wareegaya kan halka buu aadaya kan halka buu aadaya marka waa ka laakiin war kale oo yaab la ayaa caawa suuqa iibsiga ciyaartooyga dhaxyaal wariyo Barcelona say ka noqotay Ilaahay amarkii wariyay baar Ilaahay amarkii Barca waxa weeyaan bariyaan dad qaaru aruuris bay gashay sanad dhexda waa la yaabay markuu Neymar ka tagay bay suuq intay galeen waxay la soo wareegeen ninkii la oranayay maxaa la yiraahdaa Bolinho suuq intay inkastoo lagu faa'iiday Bolinho hadda lagu ma qasaarin Bolinho suuq la soo wareegay la yaabay war falabkii hore Premier League Tottenham bay la yimaadeen baa leeyahay haddana Barcelona way ku cimaamada trinkayo waqti yar uu la joogay khatar buuna noqday marka haddana waxa yaab leh iyadoo baryahan Barcelona laha Morata qaadanaysa oo la laha Carlos Vela qaadan doonta wariyahan ahaan ama la laha Cristiano Stoney oo ciyaaray Jerome bay qaadanaysa yani Barcelona wariyahano kala duwan ayaa la xiriirinayay maadaama uu ka tagay Murad Haddadi haddana Usman Dembele la sheegay inuu 2 toddobaad uu garoomada ka maqnaan doono 2 isbuuc Usman Dembele maqnaanaya dhaawiciisa waa la cadeeyo 2 isbuuc ayuu maqnaanaya Usman Dembele nasiibad leeyahay hadii laba loogu sameeyo Usman oo jabay Usman qabaar oo iska qabaar oo iska tacbaana hadii la jibiyo waxaan bislaha kan inta ka dhameeyaan balin xilli ciyaareedku maqnaanaya cimaamada idin tahay marka iska amad waxa isku sheegina hadii la yiraahdo 2 toddobaad buu maqnaana nasiibad leedihiin Usman waad aragtay cunuga indhaha banaanka ka yaale ma taqaanad u malayso cunugu inuu shuban biyood galay marka Usman mardaam maqnaanayo Barcelona marka weeriyahan bay maanta suuqa ka soo heshay ya inkastoo heshiisku rasmi aan wahayn laakiin shock waa qarka u saarihin la wareegidiisu Barca waxay qarka u saaran tahay oo heshiis la gaartay oo ay la wareegi rabaan ma taqaan ciyaartoogii hore AC Milan iyo kooxii kale ee Ingiriisku marka soo ciyaaray ee Kevin Prince Boateng ma taqaan Boateng war waa Boateng war oo Milan 2-1 ay ku cimaamadatay ee Serie A ku qaaday ee meelay hadda Susul joogo Talyaaniga kooxda Susul ayuu joogaa ninkaasi wax ka doonay ka war Barca horta ma kooxdu ma gacan geeda see loo haya Ilaahay marka Jamliga rabnaan waa leedihiin Boateng waad raadinaysaan ya qarqad u saarintii waxan ma aha la yiri maahan warkan waa dhow yahaba shoog warkan galabtu soo caraabay warkan uu yimaaday warkan waa laga yaabay adduunku Barca shoog bay ku qaadan doonaan ninka la yiraahdo Boateng oo hadda nin 31 jira Kevin Prince Boateng laakiin nin qatar weeyaano Boateng bay marka Barca qarka u saarihiino xitaa wararku waxay leeyihiin ciyaartoy waa macsalaameeyay kooxdiisa oo hadda waa dhawaanayo inuu Barca ku biiro marka Boateng wuxuu caawin doonaa Suarez ayuu caawin doonaa iyo Messi weerar ku caawin doonaa maxaa yeelay baryahan tababar waxa laga dareemay marna Messi uu nasiinay marna Suarez uu nasiinay micnuhu waxa la dareemay weerar la'aan in meesha taalo marka ninkan weerarka ayuu caawin doonaa oo sanadkan Kevin Prince Boateng laga yaabay asagoo anagu hadda qaaru waa leh haddana ma taqaan inuu ka fiicnaado ilmaha yar marka qaar ninka weyn ayaa ka fiican dhalinyarada maxay qofka dhalinyarada intuu micnaha wax badan laga sugayo uu la qabsanayo ayaa dhiba laakiin ninka la liig hore uu soo ciyaaray Prince Boateng waxa laga yaabay inuu hore kala qabsado laga yaabo Barca marka Kevin Prince Boateng markan Barca ayuu ka mid noqonayaa waxaan caaway warar ku leeyihiin qarka ayuu u saaran yahay ciyaartooyga kan waxaan heshiiskan la dhamayn doonaa ilaa iyo toddobaadka inta kale wara caawa hadaan wareegin kan biri waa wareegaya ama ka hor kulanka Sevilla Barca la ciyaari doonto Arbacada lugta koowaad ee Del Rey waa la dhamaynayaayo marka ninka kan hadda Boateng koox badan ayuu soo ciyaaray hadda Barca waxay noqonaysaa kooxdii 10aad oo u ciyaaray xirfadiisa noqon doonta wuxuu soo ciyaaray AC Milan Tottenham Borussia Dortmund iyo kooxda la yiraahdo Bournemouth xataa Spain buu ka soo ciyaaray marka ninka kan Sassuolo bay ka soo qaateen xitaa wararku waxay leeyihiin Barcelona halna xataa kama soo wadata kula Sassuolo mid kale ku jira kula oo qadix ka ciyaaro leeyahay Stefano Sensi kaas oo xilciyaareedka dambe isna imaan doona Barcelona nin kale oo qadix ah marka Barcelona Sassuolo ay wax ka raadis ka war Sassuolo oo Talyaani ka ciyaarta koox iska yaro iska galab ay wax ka doonatay marka Barcelona Boateng ay soo wataan waa rasmi warka kan oo yaani rasmi ma ahan la wareegay laakiin warkan ciyaartoogan warbaahinta dhan baa qoray in heshiis la sii gaaray oo Barcelona ninkan qarka u saaray Boateng markan waxa isla dhasheen Jerome Boateng oo isna u ciyaara Bayern Munich ay isla dhasheen oo kan waa Ganeys kaasna waa Jarmalooyo kaas cidii kala raacayo adoga iyo habarta kala Afrika iyo oday Jarmalku kala marka kaas wuxuu yiri adogan jira kana habarta leegu agdilo yiri wadanka Afrikaan aan beereyga ka falanaya marka wadanka uma ciyaarin Jarmalku kaabada wadanka Jarmalku ciyaaray Jerome Boateng kan waa nin Ganeys ah gaanu u dagaalamay laakiin ninkan Jerome Boateng hadal baa laga hayaa intuu san Barca ku soo biirin hadalkaas oo ahaa inuu soo bardhi ku sameeyay hadda ka hor intaanu Barca ku soo biiriyo ogahay inuu Barca ku soo biirayo marka war baa ka tagay laakiin nasiib ayuu u leeyahay warkiisii meel odagu ma taaban odagu uu cimaamadi yaani ma ogtahay marka qaar ciyaartoy waa la weydiiyay war Messi ismay Ronaldo yaa fiican hadda ka hor san su'aashan waa la weydiin karaa Boateng hadda Barca ku soo biiraya odagu u socdaa ma ogtahay hadii waa la kurkurayay odagu ninkan hore uu macnaa odagu waa amaaya uu kabtiisa isku gashanba
ninkan hadda ka hor ka jawaabayay su'aal ahayd Messi iyo Ronaldo yaa fiican ayuu wuxuu sheegay Ronaldo inuu yahay tusaalaha dhalinyarada yar ee soo baxaysa yacni caruurta marka laga hadlayo waxaa tusaale u ah Ronaldo maxaa yeelay Ronaldo wax badan ayuu tababartaa waa nin tababarka ku waalan ayuu yiri oo nin kubadda cagta looga dayanayo waa uu isaga ayuu yiri marka Cristiano Ronaldo ayuu yiri adduunyadan ayuu ka shaqaystaa waana qofka ugu fiican adduunkan laakiin marka ay noqoto adduunka oo dhan marka laga baxo kulaha ninka ugu fiican waa Messi uu yiri macnuhu ninkaas waa nin caadi aan ahayn oo cajiiba macnuhu labadina wuu amaanay wuxuu yiri Ronaldo ilmaha yar way ku dayan karaan dhalinyarada ku ciyaartooyga soo baxay dhan way ku dayan karaan nin aad u tababar fiican weeyaan nin khatar badan weeyaan buu yiri Ronaldo adduunkan isaga ugu fiican laakiin adduunyada marka laga gudbo adduunku wixii ka dambeeyay Messi ugu wada fiican buu leeyahay wuxuu ku tilmaamay Messi nin cajiib yahay asoo ka hadlay Messi wuxuu yiri Messi wuxuu sameeyay qof bini aadan oo Ilaahay abuuray ma ba sameyn karo leeyahay yacni qof bini aadana wuxuu ninkaas gaaban sameeyay ma sameyn karo wuxuu isagu ba sameyn kara maxay yiri ninka kanu uma arko inuu adduunyada ka mid yahay Messi reer adduunya uma leeyahay yiri macnaha reer adduunya uma leeyahay macnaha wixii jaaduuda la lahaa filmaanta lagu sheegayba waaba kaayuu leeyahay kan reer adduunya ma aan Cristiano adduunka ayuu maamulaa yiri laakiin Messi qof walba oo dhan ayuu ka fiican yahay qof kasta oo la keeno Messi ka fiican buu hadda ka hor Boyten marka odagu marka waa loo cimaamada kab isku gashan kabta odagu ma gashan marka walba waa loo cimaamada doona Boyten Boyten barshuca uu qarka u saaran yahay ninkii De Bruyne ahaana wuxuu leeyahay xaaladeeda ugu fiicneed hadda ma haysto ileen waad ogtiin wax badan baan ciyaaru ka maqnaayay laakiin waxaan isku dayi doonaa wiil maalmaha soo socdaan xaaladeeda ugu fiican ku soo noqdo tababaraha Liverpool maanta wuxuu yiri ma taqaana ciyaartooyga uu geesiyaasha way mahadsan yihiin waliba geesiyaasheedu 15 kulan ee soo harsan Premier League waad arki doontaan waxa idin tusaan buu leeyahay uu ku faanay wiilasheedu waa ku faanay wixii Crystal Palace kulkooda ay sameeyeen waliba Firmino ayaa aad loo amaanay todobaadkan oo 3 boos ka ciyaaray markood weerar ka ciyaaray markuu Fabinho dhaawacmay dhexda ka ciyaaray markuu Milner Rosa qaatin duwaha ka ciyaaray wuxuu leeyahay wiilasheedu ku faanaya 15 maalmood ee dambeeyana kulaha 15 kulan horyaalka nooga dhimana hawsha waan cabayna horyaalkan anaga iskale warkaas waa caday Liverpool horyaalkan waan yeeysatay abow ninkii Neymar ha wuxuu beeniyay wararka sheegaya inuu Real Madrid ama Barca ku biirayo Neymar wuxuu yiri wararkaas waa war xan ah ninkan ayaa la filayay inuu kooxaha Spain dib ugu soo noqdo laakiin Neymar ayaa beeniyay wararka ka waxaanu sheegay in ay been yihiin marka Real ayuu hoos wararka ku aadan labada koox ku soo biirayo Neymar waa beeniyay ninkii Mauricio Sarri ahana kabka weyn isku gashtay ciyaartooyga Chelsea ma isku taabtaa haddaad ciyaartooyga Chelsea ku taabto waa lagu ciirinayaa marka ninkii Sarri aha wax hadda la saadaalinaya in maalmaha soo socday muddada soo socota kooxda laga ciirin doono Neville ayaa ka mid ah ragga saadaalinaya Gary Neville wuxuu saadaalinaya ninkan inuu isku taabto ciyaartooyga Chelsea waa xasidin waa kula goynayaan Bukuuriyo Mourinho weydii Villas-Boas weydii Conte ciyaartooyga Chelsea dad wax ka sheegto way ku xasnimeynayaan oo ku hagarayaan si lagaga badiyo hadda waa kan Sarri waxa loo arkayaa leeyahay inuu kooxda ka tagi doono waxaan maleynayaa Gary Neville ciyaartooyga Chelsea in hadda durba bilaabeen inay ninkan u heshiiyeen si asaga loo raacday isu dhigan doonaan si aad isu dhigan doonaan Sarri ayaa hadda kooxdan ka soo qayb galin karin xataa laga yaabo 4 sanadkan ku dhamaysan karin inay Real qaad iska dhaaf Chelsea 4 sano loo cabsanaya marka Mauricio Sarri ciyaartooyga Chelsea uu bilaabay inuu caayo ciyaartooyga Chelsea marka la caayo wax laga sheego way xasnimiyaan tababaru marka hadda falanqayaashu ciyaaru waxay leeyihiin malaha waqtigii waxa la gaaray Sarri la ciirin la habeeyleen maxay leeyahay Sarri asaa kabtan isku gashtay kabtan mar isku gashto ciyaartooyga Chelsea macallimiinta waa la gidiyaan markaad wax ka sheegto xasnimo si lagu raacdayo lama ciyaarayo si fiican looma ciyaarayo saadaal bay bixinayaan falanqayaashu waxay leeyihiin al Sarri kabtaada kab weyn baad gashatay waad arki doontaa yani waa lagu ciirinayaa waruyaha caawa ciyaaraha inta ugu weynaa nabadgelyo